runtii dee waxay la tahay madal weyn oo runtii dee wax badan dalka iyo dadkaba u soo kordhinaysa ayaynu isugu nimi run ahaantii information and communication technology ba dee maanta laga hadlayaa waana meesha dee loo guuray loo socday dunidu u socoto waxaan si fiican u arkaa qof weyn oo jooga ma jiro dhalinyaro qura timi macnuhu waxa weeye anaga tiimka iyagu shaqo kuma lahayn hawshan laga hadlayo iyo waa wixii naga dambeeyey marka dee runtii wax badan oo ama information ahaan ka odhanayo ama runtii aan dee aqoon badan aan u leeyahay anigu runtii ma jirto laakiin waxaa qof waliba og yahay oo bini aadanahi in iminka dee adduunyaduba u socoto amaba dee adduunyada lagu maamulayo technology-ga annagu commission ahaan runtii waxaanu nahay hay-adaha sida weyn uga faa'iidaysta waxaa ogtihiin hawsha iyada oo dhammi inay ku xidhan tahay technology-ga oo hadday voter registration-ka tahay oo runtii ay adkaan lahayd haddii aan la gaari lahayn cilmigaa dunidu aanay gaari lahayn in sida aan u qabanno ama kaararka u samayno ama loo saxo ay runtii aada u adkaan lahayd innagoo bulsho ahaan runtii isaga dhisan inaynu wixii ay jaaniskeenu hellaba ka faa'iidaysano wuxuu noqday waxyaabaha aada iyo aada u xakameeyey dadkeenna ama ma garanaysaa lagu sugay ee lagu saxay haddeerna stebkii labaad baanu qaadnay oo wuxuu ahaa markii hore waxaanu haynay kii voter registrationka dadka lagu diiwaan gelinayey oo ahaa in qofka macluumaadkiisa iyo sawirkiisa iyo indhihiisa lagu qaado laakiin marka aynu hawsha dhabta ah ee doorashada ah gelayno mani walbaynu ku shaqayn jiray oo waxaynu ku shaqayn jiray in kaarhka la eego oo dee qofkaa lagu hubiyo si mani wala marka haddeer sidaa ka war haysaan waxaanu keennay oo dowladda taiwan inaga caawisay kii doorashada lagu hubinay marka macnaha malaa si kale haddaanu idhaaho waa kii qorayey iyo kii akhriyey ka horaan haysanay waxaa ka lagu sameeyo dhaatada lagu helo macluumaadka qofka iyo indhihiisa lagu xafido laakiin waxaynaan haysan kii waxaa akhriyayey ee qofka inta indhaha loo geliyo sheegayey qofkan kaarhka sitaa inuu qofkii yahay marka dhammaan reer somalilandba waxaanu ugu bishaaraynaynaa doorashooyinka dambe inay noqon doonaan kuwo xora oo xalaala oo 100% sababtu waxa weeye ma jiri doono qof kaadh aan u lahayn ku gala doorasho ma jiri doono qof intuu meel yimaado dee berigii waxay la tahay doorashadii hore aana anagu joogin xusbiyada mucaaridku waa ku yidhi dee dad dhintay baa codeeyeyba macnaheedu waxa weeye kaarar kalaa lasoo qaatay lamana biciidsan karo xaqiiqdii waxa weeye qofka 16 dhalinyarada ah ee laga qaaday sawirka maanta kii maaha inay yarna meesha waa la geeyey buug baa la baadhaya waxbaa la baadhaya haddii la doono meesha wax lagu qabanayaa meel ma garanaysaa laydhkeeda iyo wixeedu hagaagsanyahay maaha marka yacni way dhici karaysay runtii in dee dad sidaa ku dhex mari karaan laakiin waxaan ballan qaadaynaa haddeer inay soo dhammaatay baalkii indhaha keennay aanu codayn doonin qof aan lahayni halkana fariintaanu ka diraynaa waxa weeye diiwaangelin baanu qaban doonaa dhow qofna waxba iyo islu goyninoo isku dayin inuu dee kaar kale qaato ama wax kale isku dayo sababta waxa weeye waa laga gaashaantay arrintaa waa laga diyaar garoobay duplicatekiisana waa la qabanayaa xaqiisa wuu seegayaa codaynta haddiiba si kasta ha noqotee ama kaar qof kale ama si kale uu yimaadana kuu suuroobi mayso baan fariintaanu diraynaana weeye mawduuca iyagii baan iska galay aad baa raalli uga ahaanaysaan haddaan u soo noqdo arrintan waxaan leeyahay runtii waa hambalyaynaynaa wasaaradda inoo qaabilsan howlahan dhammaantoodba
waxaan kale oo runtii hambalyeynayna cid kasta oo gacan ka geysatay oo inoo suuro gelisay inaynu maanta informationka iyo isku xidhka iyo dee aynu hello amaba dee ay isku wada xidhnaadaan wasaaradaheena iyo dalkeenu isku wada xidhnaado oo wada shaqeeyaan wax badan bay runtii fududaynaysaa cid walba dan baa ugu jirta wada shaqayntaasun baana dee dowladnimada iyo nidaamka ku socdaa wasaarad kasta waxay la tahay dee dan baa ugu jiraysa iyo waddankaba waxaan isleeyahay wasaaradda maaliyadda iyo cashuuraha iyaha ugu badnaadaan marka aad iyo aad baan u hambalyeynayaa runtii aad iyo aadna waan idinka raali gelinayaa haddii aan xoogaa markii horena soo habsaamay oo mansoor baan tegi oo waxaan islaa waa mansoor dabeedna intaan soo socday bay noqotay marka aad iyo aad baa umahadsan tihiin de waa idin hambalyeynayaa dhammaan hambalyo okay mahadsanid agaasime horeynu ugu sii socon doonaa insha allah biidmillaah waxaan u yeedhi doonaa CEO-ga shirkadda GTS Khalid Maxamuud Sheekh kusoo dhawow Khalid